munaasabadani ayaa ahayd mid ay abaalmarino ku guddoonsiinayeen ururka maxalliga ah ee Somraar iyo ururka dhalinyarada ee Haldoor shakhsiyaadka kaalinta fiican ka qaatay horumarinta degmada Maxamed Mooge waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa guddiga degmada Maxamed Mooge mas'uuliyiinta labada urur ee soo qabanqaabiyay abaalmarinahaasi culimaadudiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Haldoor iyo Juweeriye Cabdiraxmaan oo ah madaxa daryeelka carruurta ee ururka Somraar waxayna ka warbixiyeen ulajeedka munaasabadaasi. Juweeriye Cabdiraxmaan Xuseen haddaan wax fiyo ka siiyo ururka Somraar Organization waa urur ay dhalinyar Somaliland ay aasaaseen iminkana kamid ah ururada ay ka sharciyeysan Somaliland sidoo kale ururku wuxuu qayb ku leeyahay dhamaan Somaliland qaybaheeda kala duwan degmooyinkeeda oo coordinator u joogan sidoo kale ururku xaruntiisa u weyn waxa weeyaan magaalada Hargeysa waana urur humanitarian ka shaqeeya qaybaha u weyn ee xoog saara ururka waxa kamid ah sida education-ka oo kale oo weyn si tabarucaad maadaama ururku iminka aanu meela fan sahilin ayagu sidooda ay u baraan inta carruurta yar ay toos iyagu intay si supplementary oo xusi baraan ay marka dambe iskuulaadka u qaybiyaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan ragga loogu talagalay in markaa la marti sooro oo يعني لو تهنيديو دلالك أي موجين إمام الذهبي رحمه الله أيا وحوها مركزي هورة يعني قرالك يفرت أيو آدو قوانك سنة خطات بها نين علماء دي سكمدة أيا دي رجلي مالين مال ما كمدة وحوير فرتا قروح بدن يا قرال كان هدية تفقر لهايد وركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوانك سنان لهايد أما حديث wuxuu noqday akhiiran inuu fikirka qaato iyo dhiirigelintaasi muhaddith weyn ayuu noqday maarta culimada islaamka ee cilmiga ee aqoonta loo daba fadhiyo inta kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee degmada Maxamed Mooge maamulaha dugsiga Maxamuud Axmed Cali gudoomiyaha ururka Hiil Sabool iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxayna yiraahdeen rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri khayru naasi anfa'uhum linnaas dadka waxa ugu fiican oo ugu waxtar badan qofka waa umada waxtarka u leh ruuxantii xafladan iyada ay qofka la abaal mariyo ilaahay ta abaal marinta ilaahay baa ka weyn qof bin aadan wuxuu ku sheego waxa ka qaalisantu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siinayo waxa la yahay qul i'malu sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sameeya oo shaqeeya buu ilaahay yiri waxa weeye ilaahay baa subhanahu wa ta'ala inga arkaya waxa sameeynaysa iyo cidii soo agaasisay xafladan ba oo mahadnaqaynaa dadka la tilmaamay wax badan qabtay iyagana ilaahayna ka abaal mariyo khayrka uu waafajiyay annaguna aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa dadka kalena waxaanu leenahay ku dayda oo wanaaga waa la iskaga daydaade waxa ay qabteenna halala ilaaliyo oo wax waa la qaban karaa laakiin runtii waxa la labada urur aad u mahadsantihiin wali kamay dhicin lamana arag urur noocan oo kala ah sida Somraar iyo Haldoor ay sameeyeen in degmada Maxamed Mooge ee maanta ku suganahay qaabkan oo kale ay soo abaabulaan oo qaab kale oo kale ay dadkaas u soo marti qaadaan balse waxaan filayaa inay tahay talaabo bilow ah waxaan leeyahay shukran aad iyo aad u mahadsantihiin intaay in ka badan ba waalidina garab taagan yahay waana la idinka sugaya hadii la yiraahdo runtii dadka bini aadamkii hadaan isku mahad celin walaw kaana waxa la siiyay haba yaraatee walaw kaana ficil ahaato ama qowl ahaatee hadaan la isku mahad celin wax hagaagaya wax horumar la higsanaya haba yaraatee ma jirto wuxuu yiri qofka wanaag idin sameeya man sana'a ilaykum ma'rufan fakaafiuhu qofka wanaag idin sameeya uu abaal guda fakaafiuhu waxa weeye maadi weeye adduunyahan wax siiye weeye haddaad kari weydaan adduunyada siisaa sidaan caawo kale yani wax maadiyo muuqanayo la taaban karo haddaad kari weydaan u duceeya jazaakumullahu khayral jazaade gabagabadii waxa halkaasi abaalmarinihii ay soo diyaariyeen ururka maxalliga ah ee Somraar iyo ururka dhalinyarada ee Haldoor halkaasi lagu guddoonsiiyay shakhsiyaadkii kaalinta fiican ka qaatay horumarinta degmada Maxamed Mooge Maxamed Deeq Ismaaciil Xaashi telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.